mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa 21aad ee wadajirka ah waxaana shir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare Cabdullaahi Xirsi Timacade ajendaha kulanka wadajirka ah waxa uu ahaa si ambaqaadida dooda ku saabsan cutubka 9aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah waxaana xildhibaanada labada aqal ee dood xasaasi ah ka yeesheen qodobada cutubka 9aad ee dastuurka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cali Shacbaan Ibrahim oo kulanka soo xidha ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay ka doodista cutubka 9aad ee dastuurka isagoo u mahad celiyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka sharafta leh ee saal socoteenba ayama waxaan noo socday 5 cutub ee cusbaneed iyo 4 cutub wax ka bedelka 5 cusbaneed cutubad waxa mantaqaanaa noogu dambeeyay cutubka 9aad oo maanta soo gabagabay marka guddoon ku cilinaynaa si ay tala bixin iyo xildhibaanadii iyo doodahoodii iyo senataradii u soo qiimeeyaan marka hada hawshan halkaas inoogu soo soconaysa waa mahadsantiin